بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونسان جود هانتين بخيارتا قيمينتا قدرينتا iyo xishmada badan ee hawada nagala xidhay meel kasta oo daafaha dunida aad ka joogtaan oo aad kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliland. daawadayaal waxaa noo suurta gashay oo aanu jecel lahay inaanu wareysi qasriga madaxtooyada Soomaaliland kula yeelano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. waxaan jecelahay in marka ugu horeysa aan ku soo dhaweeyo telefishinka qaranka Soomaaliland iyo waliba wareysigan ama fursadan qaaliga ah ee aan u helnay. mudane maxaan ku soo dhaweeyo TV qaranka. الله يخليكم aad baan u faraxsanahay aan interviewga la bixiyo daawadayaal madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo dalkan hogaaminaya madaxweynaha ka 7 sano ee ugu dambeeyay ayaa waxaanu ka wareysan doonaa xaaladda guud ee haatan dalku marayo gaar ahaan waqtiyadii ugu dambeeyay ee qaadashada kaarka codbixinta ee ka socota dalka oo la marayo labadii gobol ee ugu dambeeyay mudan madaxweyne sida la wada socotaba gobolka Sool iyo gobolka Sanaag iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi waxa ka bilaamatay qaadashadii kaarka codbixinta. waa maxay fariintaada madaxweyne aad u dirayso shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan labadaasi gobol ee la doonay inay qaataan kaarkoodii muwaadinimo ay xaq u lahaayeen ee codbixinta? sida tiri waxaan aad ugu guwaabinayaa inay kaarka qaataan kaarka codbixinta qaataan ahmiyad weyn bay leedahay in kaarka la qaato. doorashooyinku waa inuu doorasho xor ah xalaal galaa waa waajib in saar xilin la saar weeye waa xaq dadkii shacabku u leeyahay weeye waxaanu dal dimuqraadi ah oo madax bannaan baynu nahay waa inaynu marka doorashadu timaado kulliga diyaar garowna sida daraadeed waa in kaarka la qaata oo meel kasta jooga la qaato oo loo diyaar garoobo doorashada sida xaqa si doorasho fiican oo wanaagsan loogu laado insha Allah. watahay madaxweyne waad mahadsantahay shacabka Soomaaliland iyagoo runtii qaadanaya kaarka waa fursadii ugu dambeysay oo labadii gobol ee ugu dambeeyay ee qaata kaarkaasi codbixinta iyaga si gaara ma jeceshay inaad ula hadasho? waxaan jecelahay ku dhiirigeliyo gobolada inay kaarka qaataan. doorashadu waa waajib in saar xilin saaran weeye waa xaq inuu leenahay doorashada inuu ka wada qayb galaa waa waajib in saaran marka meel kasta inuu joogno iyo waxba ka haalin kulligeena aan dadaal meel ka wada geysana hawsha aad iyo aad baa mahadsantiin. watahay mudane madaxweyne waxaa jira siyaasiyiin ama xisbiyada mucaaradka qaar kamid ah siba kuwa dhaliila ee xisbiga talada haya iyo xukuumaddu waxa ay kugu dhaliilaan mudane madaxweyne oo ay sheegaan inaanay sax ahayn inaad taageerto musharaxa xisbiga talada dalka haya ee kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas ay kugu eedanayaan mucaaradku? waxaan ka jawaabay xisaabanu nahay dal dimuqraadi baynu xisaab ka kooban xisbi baan ka tirsanahay haddaan xisbigayga noloshiisa taageerin yaan taageeri lahaa طبعا dadka waa u simanay si habarka loo eego laakiin xisbigan ka tirsanahay xisbigan ka tirsanahay murashaxiisa waa taageeraya oo waajib xil saaran weeye. haddana dadka xisbiyadii mucaaradku waxay leeyihiin madaxweynuhu inta badan may fiicnay inuu taageero fariin gaar ah oo mucaaradka iyaga u diraysa ma jirta? mucaaradka waxaan u dirayaa waa dal dimuqraadi baynu nahay xaqiina waa helaysaan in xaqiina idinka celinaysaa ma jirto marka aan wada dadaalo aan howlgallo aan warshaqo gallo shakigana iska saaro iska daaya si insha Allah taala doorasho fiican oo wanaagsan xaq oo xalaal loo lacaysa dalkeena. mudane madaxweyne waxaa jira siyaasiyiin iyagu caado ka dhigtay ama dad kale oo tiro badan oo iyaguna inta badan kugu dhaliila in madaxweynuhu aanu caafimaadkiisu sax ahayn dalkana aanu ka talin. fariinta aad u dirayso dadkaasi mudane madaxweyne adigoo jaaniskan aanu ku siinay kaga faa'iideysanaya waa maxay? deegaanka wadida ka tarisa dalka anigu caafimaad qaba alxamdulillaah rabbil caalamiin caafimaadkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay waan caafimaad qaba waa wanaagsanahay dalkan aan madaxweyne ka aan ka tariya haddii iyagu sheegay cid kale ka tarisa iyagu sheegay iyaga la weydiiyo. madaxweyne xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo waliba siyaasiyiin kale tan iyo intii talada dalka aad hogaaminaysay waxay dhahaan dalku wuxuu leeyahay mustambeed ama dad kale oo madaxweynaha ka dambeeya arrintaasi iyada maxaad kaga jawaabaysaa adigoo mar kale aan jecelayn kugu soo waxaan kaga jawaabayaa dalka xilka iyo mas'uuliyadda saaran cidna uguma dambeeyo xilka iyo waajibka saaran waan ka soo baxaa shaqadeedana waan haystaa ilaahay maadii si fiican way ku socotaa dalka iyo dadkana meel fiican bay hawshu maraysaa dadku la wada shaqeynaya hawshu waa loo soo wada jeedaa anay kaliya waa la shaqeynayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadka la shaqeynaya iyo dadka soo jeeda hadii golena oo halgamaan dalka xorriyadiisa madax banaanadiisa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyagana ugu soo jeedinaya. waxaad leedahay in caafimaadkaagu waa taam oo buuxa? caafimaadkaygu alxamdulillaah rabbil caalamiin waa taam waa wanaagsan yahay
واتهي مدن مدحوينه إن أنيقو كاغا مهد علنيا ورئيسك runtii aad siisay warbaahinta dawladda waxaa jira mudane madaxweyne waxaa tahay madaxweynihii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika marka la eegayo hogaamiyaashii soo maray ama madaxdii soo martay waxaa tahay madaxweynihii ugu horeeyay ee isagoo musharaxa doorasho madaxtooyo kaga taga 80 cod maantana Somaliland waxaa 3 bilood kadib loo dareeri doonaa doorashadii madaxtooyada waxaa ku tartamaya 3 musharax oo 3 xisbi ee kulmiye iyo wadani iyo cid u tartamaya musharaxiintaasi adigoo oo runtii way aragnimada siyaasadeed ee kontankii sano u dibay saxada siyaasadeed ku soo jirtay maxaad u soo jeedinaysaa fariin saddexdaasi musharax waxaan soo jeedinay dal dimuqraadi ah nahay daltan xalaal ah xor baynu galaynaa dalta ka xor xalaal ah cid walba waa ka qayb galaysaa nuqul nasiibka ka qaad wixii sharcigu noqdana iyo wixii nidaamku wixii dadku doorashada noqotana loo hoggaansan in dadka qaar ba iyagu la in runtii doorashadan uma eka runtii inay sideedii u dhacdo oo shaki kaga jira kuwa maxaad baad ugu jawaabtaa shakiga iska saareen oo iska daayay shakiga dalku waa dal madax bannaan waa dal soo bislaaday waa dal siyaasadiisu bislaatay oo gaamuray oo garanaya wuxuu sameynayo marka insha Allah si wanaagsan bay nagu dhici doontaa doorashadu si fiican bay nagu dhici doontaa waana cid walba hoggaansataa u diyaar garooday inuu hoggaansato wixii ka soo baxa waxaa jira ama jiri kara qaar ka soo horjeeda jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliland kuna soo dhax dhuuman kara inay nabadgelyada wax yeelaan adigoo shacabka Soomaaliland la hadlaya in fariintaada dhinaca amniga waa maxay fariinteeda dhinaca amniga waxa weeye amnigu dantan iyo maslaxadeena oo dhan baa ku jirta qaranka ku jirta ummadda ku jirta xil iyo waajib ina saaran weeye kulligood inaynu ilaalino qaranka inaynu nabadgelyada ilaalino inaynu warjirka ilaalino inaynu midnimada ilaalino inaynu dimuqraadiyadeena ilaalino واجب حين سارة ويا إذا واجب وين كسبحنا إن شاء الله تعالى وأنا كسب عدونا su-aasheeda ugu dambeysay ee madaxweynaha ku weydiinaya waxa weeye shacabka Soomaaliland iyo dadka inta badan iyagu xiiseeya saxada siyaasaddu waxay isweydiinayaan mudane Axmed Silaaye marka uu ka dega 3 bilood kadib in madaxtinimada ama madaxweynenimada talo muxuu qaban doonaa se muxuu ka faa'iideysan doonaa halka marba taan la taaganahay wanaag ma la taaganahay wixii laga baahan la taaganahay alxamdulillah rabbil caalamiin wixii dalka iyo dadku iga baahan mar walba diyaar u ah waqtigaaga maxaad ku qaadan doontaa waxaan ku qaadan doonaa danaha dalkan ku qaadan doonaa insha Allah ta'ala وهجاج أخيارتها ودنا قال حديداي كاسوحة وها مدحونها جمهورية الصوماليلاند مدن أحمد محمد محمود سيلاي أو 40 الدولة دا إن ورئيس خاصة كسي قصرها مدحتوية الصوماليلاند مدن مدحونا وان كاجم هاد علنا يا رنتي وقتها قالجا النصيصي آديات بدقومها صنتهاي ورئيس قاسي daawadayaal weli waraysiga aan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliland ayaa weli noo socda waxaan soo kormeernay qaybaha kala duwan ee madaxtooyada ka kooban tahay taliyaha ilaalada ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliland oo haatan isagoo hawlihiisii shaqo ku guda jira ayaa anaga madaxweynahooda socon runtii aan la kulanay in taliye maxaad waraysa ka war xaaladda aad u fiican tahay 100% madaxweynaha waxaan ku soo dhaweynaynaa inuu xilligan oo ay saacadda ma tahay na soo kormeero runtii oo noogu yimaaday ilaa xafiisyada dambe aad baan ma garanaysaa wax maleena madaxweynaha halkan imika aan joognaa waxa weeye muddadii aan joogay ciidanka ilaalada madaxtooyada waxaan ku kordhinay xafiisyo si aan shaqada u daadejino oo ay hawluhu noogu fiicnaadaan oo u dardar gelino iyadoo jiray ma garanaysaa xafiisyada noogu yaraayeen oo hal maamul iyo hal xafiis oo taliyaha ay jireen hadda si aan ku kordhinay 6 xafiis iyo guryo badan oo saraakiishu seexdaan kuwan waa kamid oo 3 xafiis ay fadhiistaan maamulka iyo xafiiska ciidanka iyo waxa weeyaan khasnajiga kuwa kale way jiraan oo ku yimika aynu soo marnay oo iyaguna ah xafiiska tababarka iyo ka baanduulaha iyo ka hawlgelinta xaaladda guud ee madaxtooyada dhismahaas waxaan uga jeednay inay la jaan qaadaan dhismayaasha quruxda badan ee kala duwan hadday la taliyayaasha tahay hadday dhiijiyada tahay hadday agaasimayaasha tahay dhismaha ka jira markaanu aragnay baanu siri si ay ula jaan qaadaan ciidankuna xafiisyo lamid oo la quruxa oo lahana qaada madaxtooyada dhismaha qaabkooda sameeya aad bay fara badan yihiin halkan 10 qol baa ka soo jeeda halkan waxa weeyaan farmasiyadii iyo halka ay ku cunayeen hoolashay ku cuntaynayeen حقنا وحويان توششكي عيدنكا وهذا كيسان سرده دي قلب كودي لما قرنا سعيد دايما بروح بدين وهذا كيسان وجهي جالس بسميين مدحوين maxaad kala raacin lahayd
wasiirka madaxtooyada mudane maxamuud xaashi aanu nagu dardargelin naguna dhiirigelin annagoo fulinayna amaawiirtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaayo oo hadda agteeda taagan oo ay waraysanaya aad baan ugu faraxsanahay inuu madaxweynuhu iyadoo ay saacad dambe tahay kormeer ku sameeyo ilaa iyo madaxtooyada qaababkeeda intay ka kooban tahay waana ku hambalyeynaya in nagu dhiirigeliyo noo ogolaado annagoo fulinayna waajibaadkiisii qarannimo ee la jaan qaadayey dhismayaasha kale ama horumarka kale ee dalka akhyaarta awda nagala xidha intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa waraysigaas aan la yeelanay madaxweynaha somalilan waa sawirqaadistii cabdilaahi cali suudi iyo axmed seko dhammaantiin mid ku dhaafaya kulanti dambe oo xiise leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu